iyo arrin nabadeed walaaltinimo u doonaya dalkiisa iyo qarankoo dhanba markii aanu iswaraysanay waxaan u aragnay inuu yahay nin nabadoon ah dadku inay wax wada qabsadaan oo colaadaha laga baxo oo xuquuqdooda la simo nin araggiisu yahay oo dalkiisa iyo geeskaba ka doonaya ayaanu kala kulannay waxaanu u sheegnay halkaa uu joogo iyo fikraddaa uu joogo annagoo da'diisa ka yar inaanu ahayn dadkii bilaabay inay biyaan colaadda 5 sano u soo dhaxaysay gaar ahaan Soomaalida iyo Ethiopia oo sanada ilaa 5 gaaraya oo dadkoodu markay arkaan kala argagaxaan oo ay kala baqdaan dadkii naftooda u hibeeyay ee wariba iyaga u tagay ee yiri aynu mustaqbalka wax ka bedelno colaadahan ay tahay ee ka soo bilaabay 40 sano ka hor halkaa ee ilaa maanta aragtida nabadda iyo wax qabsiga walaalnimada u socda inaanu nahay waanu u sheegnay Somaliland ay kow ka tahay arrinta dhamaanteed ararta guud markii aanu soo wadaarsanay oo aanu u sheegnay Somaliland inay tahay mid nabad ku aasaasantay gudaheeda iyo jaarkaba oo taariikhdeeda iyo sida iyada oo aan cidina caawin yoon isumna loo soo dirin jibcada quruba ka dhaxaysaana lacag ku bixin la taliyayaal buug badistan loo soo dirin ee iyadu dadkeeda iyo dalkeeda dhistay maantana ay 20 sano ku socoto iyada oo aan cidina israafsanayn banka adduunkuna lacag siinin cidina gargaarin dawladaha waaweyn aanay deeq siinin dadkeedu inay yahay kuwa dawladda dhistay ee inta socda ee abaaraha iyo dhibaatooyinka oo dhan iyagu midaysan ka hortagayeen inay tusaale u yihiin ra'yigaad ku fikirayso ee in hore loo mariyo geeska Afrika tahay waxa 10 laga baraka laga ku dhiso Somaliland oo baarin laga qaato laba qodob ninkaasi ayaanu ka wada hadalay oo Somaliland Somaliland iyo Ethiopia saaxiibtinimadii ka dhaxaysay dhinac walba ganacsi amaan tala wadaag intuba inay sideedii si ka wanaagsan ahaato waa wada qaadanay halkeedii ka socoto oo koow ka tahay wadada berbera wajaale ee la kooridoorka berbera oo hadii la yiraahdo khamiista la dhagax dhigi doono dekadiina la bilaabay oo iyaduna ay socoto 400 mitir lagu daro iskaashiga iyo wadada la isu marayaa inay taa koow ka tahay waxa inoo haray u yahay in laga heshiiyo heshiiskii baac mushtarka kalabaad waxay muqdisho hargeysa ama Somaliland iyo Soomaaliya sidee loo heshiisinayaa wuxuu soo jeediyay in arrinta lagu dhameeyo wada hadal oo Afrika ugu dhow ee Afrika gashay iyo caalamkuba waxaanu ku ruri 10 sano u dambeeyay annagu baa aynu wada hadal walaalayaal daba soconay haday wada hadal oo gal yihiin saacadu ma gartayduna way noo duuban tahay waxa naga maqnay waxa tabaro waanu ognahay ciidana nala soo talin mayso naloogu yeeri maayo cid nooga xoogaasan dantayada annagu haddaanu Somaliland nahay lamid manihin koonfurta Soomaaliya yaanu waxaan ku kala duwanay laba qodob ka koobaad annagu waxaanu nahay dad distoor leh oo distoorkoodu aanu ahayn draft ee ummaddu u codaysay oo qodobadiisu ay hogaamiyaan talaabada ay qaadayso dawladdu waxaanu nahay dal distoorkooda u kala qaybsan yahay awoodaha dawladda oo aanu madaxweynaha ama xukuumaddu waxay doonto sameyn karin waxaanu soo qaadanay 3 qodob baa ku jira Somaliland distoorkeeda oo aan madaxweynuhu ku gafi karin oo aan baarlamaanku bedeli karin oo ku hadli karin oo aanay guurtidu ka hadli karin ee dadweynaha loo reebay 3 qodob ka ugu horeeya waa ka marka la wada hadlayo Soomaaliya iyo Somaliland loo wada hadlayo distoorka qodobkiisa 112 waxa uu leeyahay qarannimada Somaliland hadday la bahoobayso ama ay la midoobayso gobol ama dawlad ama qayb kamid ah oo ay heshiis xariyadeeda ay cid la galayso ma goyn karto dawladda ee baarlamaanka dadweynaha afti looga qaadaya dadka badankoodu distoorka maynaan akhrin waayo dad badan baa marka la soo qaado koonfur baa la hadlayaa koonfur baa si leeyahay waxa dhimanaysa madaxweyne iyo baarlamaanka oo ma dhaqaajin kara dadweynaha u taala waxaan ku anaga Borama sharciga sameeyay oo loo codeeyay labada qodob ee kala midna waa tala wadaaga waa qodobka 9aad waxa uu leeyahay inuu qaranka Somaliland ku dhaqmo mabda'a xisbiyada badan ee dimuqraadiga ah xukuumaduna ma bedeli karto baarlamaanka ma bedeli karo waa qodob u yaala codweyne
iyo babligu inuu ka codeeyo ee ma geli karaan ka saddexaadna waxa weeye qaranka Somaliland sharaacada iyo xukuumadda wararka xeerarka ku dhaqmayso hadday ka hor yimaadaan sharaacada waxba ka jiraan sharaacada islaamka la raacaya saddexda qodob dadweynaha u yaala koonfurtu dastuur loo codeeyay ma laha marka dastuurkoodu waa draft dawladda ma qabto madaxweynahana ma qabto si doonaaba u dhaqmaya ka labaad madaxweynaha koonfurta 400 oo guri lagu soo xareeyay baa doorta cod dadweyne ma wato 400 waa afaroodo kolba la bedelo oo baadba shirki cusub qaar cusub ay yimaadaan madaxweynaha Soomaaliland wuxuu dhibato public vote ka xukuma dad baa doortay xisbi baa daba taagan ma dhaqaaqi karo dadweynuhu waxa ay ku doorteen way kula xisaabtamayaan midiyo xool u leeyahay dhalinyaro xoolo ku jirta maxaan ku dhahay social media leeyahay uu xakamaysan yahay qarankiisu wuxuu doonay ma dhaaf karaan kulli laakiin isagu wuxuu doonaa u sameyn karaa marka labadaas sida u wada hadlayaan way kala duwan tahay waa nin haysta sharci iyo qoraal iyo wado sida loo xariiqo leeyahay did haka leexarin iyo nin maalinba xaq u soo tooso wuxuu doonaa sameynaya markaas sidee baan u wada heshiinaysaa oo waliba isagii baa leedahay waanu ixtiraafsanahay oo waliba isagii baa taageeraysaa sidee bay labada ummadood si aad u garqaadaysaan horta dee soo xakameeya oo waxa maqlo oo sharci hayado idinku qabtay hadaarda dooranay annagu soo wadadaasaan haynaa sharcigna waa kala waana codkii ummadda cidina isku xaman karto waxaan ku heshiinay in la wada hadlo oo ay caalamkuna wada hadashiyo waxa ka horeeyay Turkiga halkay duwal dhigto jaraadka waa akhriyay waxa ilaahay aanu hadalkii bilowno Turkiga kula bilaamaynaano waayo dhinac baad dhisaysaa nin dhinacina dadka uma garqaadi karo maxaa dooraysaan buu caalamku soo gal waa hadalladaan ururada waaweyn iyo dawladaha waaweyn cid waxa goyn kartaa soo gasho aragtida haddii dooraysaan maato buu naga aqbalay waliba shalay buu soo joogaaba wuxuu yiri Mareykankii iyo maxaan ku raadaa Ingiriiskii iyo European Union iyo IGAD iyo anagu waxaan diyaarnahay bisha April inaanu bilowno qabanqaabadii iyo frameworkii idina soo diyaar garowdaan war Somaliland saacada waxay wada diyaar marhur dad iyo shicib iyo dawladba xeerkaas aan ku soconaaba waxaan ku noqonaa mar warkayga halkaas u yaala iyaguna way ku jiraan isna waa balan qaad wada hadal waa la gelayaa garteedna waa go'an tahay fariin baan u dirayaa marka Soomaalida wax afsooran ku hadasho dhan Somaliland Soomaali ma nacaha way u ogtahay dadku inay midoobaan wax wada qabsadaan baa wanaagsan waxa la isweydiyaa sidee wax wada qabsanaya haddii aad sida wax wada qabsanay la isla ogaanin de socon mayso kolka hore waxaanu ka doonaynaa Soomaalida Muqdisho ee talyaanigu isan jiray inay taariikhda ogolaadaan waxay tahay taariikhda lama xadi karo 1960 waxaanu ahay laba dawladood oo xora oo si xornimo ah iyagu u midoobay la isma qabsan la isma cadaadin dawladdii 15 bay Somaliland ahayd ee Afrika xorowday